daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Odawaa oo shaaciyay magacyada saddex horjooga Al-Shabaab oo ay ku dileen Bariiri sidoo kale Awdheegle. Wararkii ugu dambeeyay ee shirka tendada Avizioni iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay. Al-Shabaab oo xeelad cusub u adeegsaday wararkii Awdheegle sidoo kale Bariiri. Khasaaraha ka dhashay qaraxii Shangaani ayaan idiin soo gudbin doonaa. Waare oo sheegay wixii uu ku bedeshay inuu ka dago xilka Hirshabelle. ciidanka dowladda federaalka oo la wareegay deegaano hoostaga Galmudug sidoo kale waxaad maqli doontaan farmaajo dalka doorasho ma gaarsiin doona oo tanaasul mu sameyn doona mucaaradka. Haddii aynu ku bilowno dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay magacyada horjoogayaal ka tirsan Al-Shabaab oo lagu dilay weeraradii ay shalay ku soo qaadeen xarumaha ciidamada dowladda ee Awdheegle iyo Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose. taliyaha ciidanka xoogga dalka Odawaa Yuusuf Raage ayaa sheegay in maleeshiyada laga dilay Al-Shabaab ay ku jiraan saraakiil sarsare oo ay magacyadooda ku sheegeen kow Xareed Dheere oo ahaa ku-xigeenkii guud ee amniyaadka Al-Shabaab, labo Ismaaciil Dubbed oo ahaa madaxii gurmadka jabhadda Al-Shabaab, saddex Cabdinuur Qaar oo hogaaminayay maleeshiyaadkii weerarka ku qaaday Awdheegle. dhanka kale General Odawaa Yuusuf Raage oo wareysiiyay idaacadda VOA ayaa sheegay in Al-Shabaab loogu dilay dagaalka Awdheegle oo kaliya wax ka badan 100 askari isla markaasna Shabaab loo dhigay 10 aysan hilmaami doonin sidoo hadalka u dhigay. Awdheegle oo kaliya Al-Shabaab waxaa loogu dilay in ka badan 100 askari. Awdheegle oo kaliya Al-Shabaab waxaa loogu dilay in ka badan 100 askari qiyaas maahan waa tiro lahu ayuu yiri Odawaa Yuusuf Raage oo ka hadlayay xaaladda dagaalkii Awdheegle sidoo kale Bariire ku dhexmaray dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale xoogaga Al-Shabaab. dhanka kale haddaynu eegno gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur CD ayaa shaaca ka qaaday in Al-Shabaab ay xeelad cusub u adeegsadeen weeraradii ay shalay ku qaadeen saldhigyada ciidamada ee Bariire sidoo kale Awdheegle. CD ayaa sheegay in shabaabka ay baabuur nooca xabadda aysan karin bulletproof u adeegsadeen inay ku soo weeraraan xeyndaabka saldhigga Awdheegle balse la qarxiyay inta uusan soo gaarin. waa xeelado cusub, waa noocyo cusub ee nidaamka argagixisada ay hadda bilaabeen waaye koleyba baabuurtaas in ay hadda tijaabi yihiin ayaan u qaadanay ayuu yiri CD oo ka hadlayay xaaladda dagaalkii ka dhacay Awdheegle. ma cadda sababta ay Al-Shabaab u adeegsadeen baabuur aan xabadda karin oo qaali ah hadiiba ay jirto sida uu sheegay gudoomiye CD, balse waxaa suuragal ah in ay ku doonayeen in ay dagaalyahanada ay ku galaan xerada iyagoo aan la waxyeeleyn ka hor inta aysan gaarin halkaasi. taliyaha ciidanka dhulka militariga Soomaaliya General Maxamed Tahliil Biixi oo u waramay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in dagaalkii ka dhacay Bariire iyo Awdheegle ay Al-Shabaab ugu dileen 85 dagaalame. sidoo kale Biixi ayaa sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay noloshu qabteen in ka badan 10 dagaalame oo Al-Shabaab ah intii uu dagaalka socday. dhanka kale wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo war ka soo saaray dagaalkaas ayaa ciidanka xoogga dalka ku bogaadiyay guulihii ay ka soo hoyeen weeraradii ugu yimid Al-Shabaab ee ka kala dhacay Awdheegle sidoo kale Bariire. weli waxaa isa soo taraya khasaaraha rasmiga ee ka dhashay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay xaafadda Saddexda Geed ee degmada Shangaani kaasoo geystay waxyeelo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dhimashada ayaa gaartay ugu yaraan 6 ruux oo uu ku jiro ismiidaamiyihii fuliyay weerarka. waxaa sidoo kale dadka ku dhintay qaraxan ay u badnaayeen dhalinyaro ku shaaxiyeenaysay maqaaxi ku taalo agagaarka saldhigga degmada Shangaani ee gobolka Banaadir. meydka dhalinyarada ayaa marka la fiiriyay waxaa la sheegay in ay aad u go'ay hilibkooda marka loo eego dhibka soo gaaray iyo sidoo kale xaaladoodaba. Avizioni haddaynu aadnada magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maalintii labaad ka furmay shir gaar ah u dhexeeya madaxda dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedyada iyo sidoo kale gobolka Banaadir. shirkan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa dibadjoog ka ah warbaahinta iyadoo ay soo qaban qaabisay beesha caalamka si loogu gaaro xal doorashooyinka dalka. inta badan waxaa shirkan diiradda lagu saarayaa isu soo dhawaanshaha labada dhinac iyadoo shalay ay dood adag ay ka yeesheen qodobada qaar ee la isku hayo. wararkan helnay ayaa sheegaya in kulanka maanta uu ka duwanaa kii shalay isla markaana hogaamiyaasha Soomaalida ay warbixin ka dhageysteen guddigii farsamada ee ku kulmay Baydhabo kaas oo dejiyay tallaabooyin lagu gudbi karo caqabadaha jira si dalka ay ugu dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah. wadahadallada ka bilowday tendada Avizioni ayaa hordhac u ah shirka guud ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee heshiiska lagu gaarayo doorashada.
si kastaba Soomaaliya ayaa haatan ku jirta xaalad adag oo kala guur ah waxaana la isu hayaa hanaanka loo wajahayo doorashooyinka dalka oo aad dib ugu dhacay markan haddaynu eegno madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa wareysi dhinacyo badan taabanaya waxa uu siiyay warbaahinta noolaato qaybtan waxa aan ku soo qaadanaynaa waxyaabihii uu Waare ku bedeshay madaxtinimadii Hirshabelle markii la weydiiyay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare maxaad ku doorsatay madaxtinimadii Hirshabelle wuxuu ku jawaabay waxaan ku doorsaday markii la weydiiyay Maxamed Cabdi Waare maxaad ku doorsatay madaxtinimadii Hirshabelle wuxuu ku jawaabay tolka oo aan ka dhashay oo si fiican aan u bartay wax fiican ayaan ku bedeshay oo aniga maanta dhib ma qabo laakiin waxa dhib qaba dadka aan ka fakirin cidii ay iyagu bedeli lahaayeen ayuu yiri waxa uu sheegay in beeshiisa Xawaadle uu kala kulmay culeyskii ugu badnaa ee haystay hogaaminta Hirshabelle ugu dambeynna ay iyagu soo riixeen qofka markii meel uu tagayo meel ka fiican ayaa loo gacan haatiyay ama waxba meesha ka ceeriya ama ka ceersada aniga Hirshabelle iyo beesheeda Xawaadle iyaga isoo riixay waxayna i dhaheen ilaahayna ayaan qabnaayeen naga tag mana ixtiraamayaan siyaasiyiinta iyaga matala laakiin maanta ayay haysataa ka hari weysidii way ku haysataa ayuu yiri madaxweynihii hore ee Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare markan haddaynu eegno ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta 12aad ayaa la wareegay deegaano ku yaala koonfurta magaalada Dhuusamareeb halkaas oo ay horey ugu sugnaayeen dagaalyahanada huweysan ee Al-Shabaab saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in dagaal kadib ay qabsadeen deegaanada Sinadaqo iyo Labi Doole ee gobolka Galgaduud sidoo kale saraakiisha ayaa xusay inay la wareegeen fariisimo ay kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen halkaas oo ay ka soo furteen sanad ciidan iyo hub sida ay hadalka u dhigeen militariga Soomaaliya ayaa haatan dhaqdhaqaaqyo ka wada duleedka Dhuusamareeb kuwaas oo lagu baadigoobayo raggii ka dambeeyay weerarkii shalay ka dhacay halkaasi xaaladda ayaa ah mid kacsan waxaana dadka deegaanka ay cabsi ka muujinayaan in dagaal qarxo maadaama ay socdaan dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda shalay ayay ahayd markii dagaal ka dhacay duleedka caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb lagu diray saraakiil ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ugu dambeyn haddaynu eegno wararka ka imaanaya gobolka Bari ayaa sheegaya in markale dagaal uu ka dhacay dhulka buraleyda ah ee gobolkaasi kaas oo saacado badan qaatay una dhaxeeyay ciidamada amniga Puntland iyo kooxda Daacish dagaalka ayaa waxa qaaday ciidamada sida gaarka u tababaran ee Puntland kuwaas oo howlgalo ka wada dhanka buuraha Calmadow ee gobolka Bari ila deegaanka ah ayaa sheegay inay maqleen dhawaaq rasaas iyo hub ay labada dhinac isweedaarsadeen waxaana haatan xaaladda ay tahay mid aad u kacsan qasare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa jira balse ma cadda inta uu gaarsiisan yahay welina ma jiro wax hadal ah oo labada dhinac ka soo baxay wararka ayaa intaas ku sii daraya in ciidamada Puntland oo ka baxay magaalada Boosaaso ay haatan dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan deegaanada dhaca dhulka buraleyda ah ee Bari wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya waa inaga intaa